أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته قدونك لبدا أقل حلبانا ذا يسنة ترى وحنا تكون سلام يا سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما أنت ومالين تاريخي ولا دم يستري دونه دستورك كمل جارك oo aan uga nasiib badanahay baarlamaanadii hore oo baarlamaanka koowaad maanta waa maalintii aan ugu hiilinayno qof kasta oo Soomaali ah inuu u leeyahay hantida kaliyaata uu ku helayo xuquuqdiisa dastuuriga thank you xuquuqdiisa dastuuriga waxaan rabaa marka hore inaan u mahad celiyo guddiga madaxa banaad dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga dib u eegista iyo la socodka hirgelinta dastuurka waxay soo diyaariyeen laba arrin oo kala ah warbixin dhammaystiran sidoo kale waxa ka bedelka dastuurka waxay dadaal geliyeen oo ay soo xigsadeen 80 dastuur oo ay kala leeyihiin dalal badan oo federaal badan waxaad ka garanaysaa baaxadda ay leedahay oo ay ku soo koobeen warbixino iyo soo jeedin baarlamaanka hore ku saabsanaa dib u eegista dastuurka sidoo kale guddigu waxa uu baadhis ku sameeyay heshiisyadii golaha wada tashiga waxay ku sameeyeen heshiisyadii golaha wada tashiga heshiisyadaas oo ah ay ku dhisan yihiin in lagu daro wixii lagu heshiiyay 6 heshiis 2018 ilaa iyo kii hadda oo si afkarad ah lagu soo dhabeeyay waxa maanta in suuqa ay keenay qodobada 63 oo dastuuri ah iyo qodobka 17aad oo labada aqalba ay ku wada shaqeyn doonaan dastuurina tahay qof kasta oo xildhibaan ah ama senator ah oo hor yaala waxaan rabaa mudanayaal cutubka koowaad qodobkiisa koowaad waxa ku qoran jamhuuriyadda Soomaaliya halkan buuga inagu aynu haysano waxa ku qoran jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkii si hor maadaama ay ku qoranta jamhuuriyadda Soomaaliya ay ka dambe lagu soo cusboonaysiiyay ay leeyihiin anaga keenay jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya xagee laga keenay kan xagee laga keenay ee cutubka koowaad faqradiisa jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya halkay ay ka keeneen waan weydiinaynaa guddiga dastuurka sidoo kale waxay ku qoreen Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya jamhuuriyadda federaalka ah ee muslim lehna gobonnimo ku salaysan cadaalad iyo sareyn sharciga diinteena maadaama dad muslimin ah sharciga soo hoos gali karta muslim la leeyahay waxaan soo jeedinayaa in diinteena lagu saleeyo sunni sidoo kale qodobka labaad faqradiisa saddexaad waxay ku soo dareen oo iyaguna aan aad ugu hambalyeynaya sida guud ay wax soo qoreen marka hore mar labaad waxaad leeyahay si qurux badan baad wax soo qortee waxa reeban bay soo qoreen waxa reeban cayda diinta islaamka karaahida iyo wax kasto wax ay ku dhimaya xushmada arrimaha diinta islaamka qof kasto diinta islaamka lala tiigsan doono xeerarka jamhuuriyadda waxa soo jeedin lahayn ku daraan jamhuuriyadda federaalka waayo jamhuuriyadda baa ku qoran federaalka Soomaaliya hala raac labadii qodob hore waxay noogu jiray federaalka Soomaaliya marka maadaama kuwa horeeyba lagu cadeeyay federaalka ha lagu qoro sidoo kale waxa aan iyaguna qodobka afraad isla qodobkiisa afraad lama soo saari karo xeer aan waafaqsanayn shariicada islaamka iyo maqsideeda waan soo dhaweynaya ereyga xeerka waayo inta badan confused waxay ka qaadi jireen sharci qaanuun iyo wixii la mid ah marka iyada laftirkeedana waxa leeyahay ereyga xeer aad isticmaashaan aad baan u soo dhaweynaya qodobka afraad sareynta dastuurka waxay yiraahdeen cid kasta oo hay'adaha dawladda ururada siyaasadeed iyo ururada bulshada waajib ku ah oo ay ugu hogaansanaadaan ku dhaqanka ilaalinta dastuurka halka laga dhigo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa aniga aragtidayda waxaan rabaa maanta si waaqac inaan u hadlo maadaama waxaan yihiin masiir qodobka shanaad afka rasmiga ah af Soomaali waa ma iyo maxaa tiri afka rasmiga jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa af Carabiga waana luqadda labaad waa sax quraankeena ku soo arooro af Carabiga laakiin marka si waaqac aan u hadlayno hay'adaheena institutionka dawladda sidoo kale qoraalada inta ugu badan waxay ku soo baxaan waa international language oo language uu isticmaalna maadaama marka afka Carabiga ah aynu kaga badanahay language anigu milihi af Carabiga meesha laga saar because markasta af Carabiga uu ku salaysanahay waxaan soo jeedin lahaa Ingiriiska hadiiba la isticmaalayo uu ku badan yahay
oo dastuurkiina loo furay ingiriishka ha lagu soo daro waa aniga aragtidayda heesta qaranka Soomaaliya waxa sheegay xildhibaan guuleed xuseen aw faarax dubad ayaa sameeyay waxa laxanka iyo codkaba lahaa cabdullaahi qarshin ku 960kii nin oday oo xildhibaan ah ayaa halkan isoo istaagay wuxuu yiri dawlad goboleedyadu waxay yeelan karaan calan iyo astaan gaar ah balse ma yeelan karaan hees astaan ah waxa ku leeyahay Soomaaliland ha ku soo gabanine ogaadeen in kilarka shanaad laga soo baxo federaalku mid diidaye federaalka hal isugu imaano kaftan bay iga tahay jinsiyada waa iga gabagaba waa soo fadhiisanaya jinsiyada kaba tegayo waa soo waxa isla ku soo gabagabay jinsiyadu waa saddex jinsiyadu ma waxay noqonaysaa oo laga dhigayaa maysan ku qeexin ma waxa laga dhigayaa dhiiga oo qofka aniga abkaygu tusaale ahaan oo kale hadda familkan anigu ka dhashay carabaha ku badan yihiin markuu Soomaaliya imaado wuxuu weydiinayaa jinsiyadiisa ama baasaboorkiisa ma wuxuu ku qaadanayaa abkiisa mise wuxuu ku qaadanayaa in lagu daro qaxooti oo sida wadamada imika markay tagno aynu aadno waxay ku qaataan qaxooti mise waxa qaadanaya qofka Soomaaliga ee xamar ku dhashay sidii kimika baan dhawto waxa dhacday national ID waa lagu wareeray national ID ayaa qaadanaya shanta Soomaaliland waxaan xildhibaan u ahay ka Djibouti jooga waxaan xildhibaan u ahay ka kilarka shanaad jooga waxaan xildhibaan u ahay ka Kenya jooga marka national ID sidii loogu wareeray wuxuu jinsiyaduna loogu wareeray marka waxaan soo jeedinayaa in xeer oo oo ku salaysan yahay dhiiga waayo dhiigu waa abka anigu aan ku abtirsado abtirsiintaan jinsigu soo galaya maqaamka magaalada Muqdisho anigu maadaama gobolka Banaadir la igu doortay maqaamka magaalada Muqdisho aan aad uga hadlaya waxaan leeyahay qaladaadka ay sameeyeen waxa kamid ah halkan waxay ku qoreen qodobka 9aad maxkamadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya magaalo madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waa Muqdisho okay haddana waxa la ii sii raaciyay maqaamka magaalo madaxdu leedahay matalaadeeda waxa lagu helay waxa lagu xeerinayaa cutubka shanaad ee dastuuriga okay waxa idin ka rabnaa haddii halkan aad ku qorteen magaalo madaxda caasimaddu waa Muqdisho waay cutubka shanaad la ii geynaya oo halkan maqaamka magaalada caasimaddu leedahay waay looga hadli waay mise waxa weeyaan saynu rabnaa inuu yeelo waxa waa dastuuri masiir umadeed weeyaan maqaamka magaalada Muqdisho inuu cutubka koowaad ku salaysanaadana waa ku qasbana calankii baa la sheegay sumadii baa la sheegay heestii baa la sheegay xuquuqdii baa la sheegay diintii baa ku salaysanaada la sheegay ma qoraal ay ku saar darabtaan aad qoraysaan ayuu noqonaya waxaan soo jeedinayaa bifadlikum in maqaamka magaalada Muqdisho ay ku cadaato cutubka koowaad hadaysan ku cadaanayna afartan cutub aad noo keenteen cutubka shanaad soo raacay si maqaamka magaalada Muqdisho aan uga hadalno inta marka laga imaado waxa ku soo gabagabeynaya arinta haweenka waxa la yiri geelo soco maalinta ciin daaqda lagu yaaba wallahi Soomaali waa cajiib waxay yiraahdeen faqradda qodobka 3aad faqradiisa shanaad haweenku waa in ka mid noqdaan dhammaan saddexda laamood ee hay'adaha dawliga iyo gudiyada madaxa banaan ee heer federaal heer dawlad goboleed iyo dawladda hoose si ku ool ah loogana sugo gaar ahaan jagooyinka la isu doortay iyo kuwa la isku magacaabo waxa rabaa anaga gudiga gabadh baa ugu jirta aan soo dirsanay in ay soo xusto 30% hadda beerashadii 300 ka xildhibaan waa 20% iyo malaha dhibic yar 5 ay raacay kii ka horeeyna wuxuu ahaa 26 maxaa ii diidaya aniga war ilaa adiga iyo anigu ilaahay waa run 150 adna 100 buu iga dhigay adna 100 buu ka dhigay waan ogolahay qof iimaan laana qof islaam ah baanahay waa ku yaqiinsana inaan ka dambeeyo waan ku qasban oo diintayda ay farays aniga maxaa ii diiday inaan madaxweyne kulamaan doorano kulamaan carrine in aniga maqaamkaygii anigu aan lahaa war anigu waan ku dhalay waan ku dhaxay waan kula dhashay saad wax barataan u bartay aqoonta leedahay leey aragtida ku hadlaysa mid ka fog baan leey fishinka leedahay mid ka fog baan leey igama aqoon badnid igama karti badnid haddaanan ku dhaaminba inaan ahay hooyo habaysa oo hagaajinaysa inaan ku dheerahay oo kaaga tanaasul badana gabadhu waxba isku xajisaa
waxbay haysaa waxbay toosisaa waayo aniga ii leedahay boqolkiiba 30 la igu soo